Maalinta berita ah waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmaya gogashii wada-tashi uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheikh, taas oo waqtigan u muuqata mid hal dhinac ka raran, maadaama ay ka qaybgalkeeda diideen siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland. Madaxtooyada ayaa diiday fulinta shuruudaha ay mucaaradku hor dhigeen ka qaybgalka gogashan, waxaana shuruudooda koowaad ay ahayd in la caddeeyo ajandaha lagu lafagurayo madasha, taas oo ilaa waqtigan madaxtooyadu aanay si rasmi ah u shaacin. Xasan Sheikh ayaa isugu yeeray siyaasiyiinta isaga la safan, madaxda xisaabtii qaadatay shahaadooyinka iyo maamulada uu gacanta ku hayo, taas oo hoos u dhigaysa in gogasha lagu xaliyo mowduucyada muhiimka ah ee laisku maandhaafsan yahay oo ay ugu horeyso doorashada. Sidoo kale gogasha ayaa kusoo beegmaysa xilli madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu dhimayo waqtigan cadaadiska uga imanaya beesha caalamka, waxaana Soomaaliya albaabada ka xiratay saaxiibadii taageeri jiray, kuwaas oo ay ku wargelisay inaanay soo faragelin arrimaha masiiriga ee Soomaaliya. Mucaaradka iyo labada maamul ee maqan ayaa in dhoweedba beesha caalamka u gudbinaya cabasho ku wajahan doorashada qof iyo codka ah ee Xasan Sheikh ku taamayo, waxaana dhowr jeer ay beesha caalamka madaxweynaha ugu baaqeen inuu talada miiska keeno, qabtana doorasho wada ogol ah, taas oo Xasan Sheikh u cuntami weysay. Madaxweyne Xasan Sheikh oo xeelad adeegsanaya waxay wasaaraddiisa arrimaha dibadda warqad u dirtay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswan, waxaana warqadan ay Soomaaliya ku sheegtay in iminka aysan jirin duruuf ay beesha caalamka uga dhex muuqato siyaasadda Soomaaliya. Khubarada la socda siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in ujeedka gogashan ay tahay mid waqtiga lagu dilayo oo lagu marhabaabinayo shacabka Soomaaliyeed. Tallaabooyinka uu qaadayo madaxweyne Xasan Sheikh ayaa bidhaaminaya in madaxweynaha ay ka go'an tahay qabashada doorashada qof iyo codka ah ee uu abaabulkeedu ku jiray bilihii ugu dambeeyey. Wuxuu dhowr jeer si cad u sheegay madaxweynaha inaan lagu laaban doonin teendhada iyo doorasho dadban, halka mucaaradka iyo labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ay tibaaxayaan in waqtigan aanay dalka ka qabsoomi karin doorasho dadweyne. Qidooyinka kala duwan ee uu Xasan Sheikh isticmaalay sida kasbashada maamulada uu gacanta ku hayo, ka fogeynta beesha caalamka ee arrimaha masiiriga iyo ku dhagnaanshaha mowqifkiisa doorasho ayaa caro xoogan ku dhalisay mucaaradka, waxaana cabsi weyn waqtigan laga qabaa in dalka uu cagaha la galo marxalad hubanti la'aan, maadaama dhinacyadu ay sii kala durkayaan islamarkaana aanay muuqan fursad abuuri karta isku soo dhowaansho.